تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللباح أما اللباحة كسو هيرو هربد هيغا توبرك إنجنير هذا مستقبل كبر علمي كمبيوتر جوب كستا يا جور كستا أضو بوقنايا طب هربد.com وما أدراك هربد ومدل وحبرشو إلا غبرتو علمي أي تيغا قيبيه سكالا دوان هذين نقطة سايبر سيكوريتي كلاد كمبيوتين مولتي ميديا نتوركين بي سي تكنيشن iyo kuwa kale badan oo lamid ah iska diiwaan gali hurbad waa e-learning oo laga wado iska wax isku bar nafta ka adkaaw 80% adaa laga rabaa inaad dadaasho 20% waa muuqaalada lagu tusay iyo qoraalka qofku uu qasbi kara waxbarasho ma jirto wax walba lagu soo diyaariyo waxa mar walba ka weyn rabitaankaaga iyo sidaad ugu dadaalayso barashadeeda iyo adduunku wax u qaybsamo ma hayste inaad haysato aaladda wax ku baran lahayd libaax ama libaaxad mudane ama marwo ku soo dhawaaw qaybtan oo kamid ah tixanaha tiknoolajiyada ee loo yaqaan TT naynaasta barnaamijkan waa TT ma adraaka TT waa barnaamijkan ku falanqayno tiknoolajiyada iyo waxyaabaha dunida ka jira qaybtan 49 waxaan ku falanqaynaynaa waxa la socdaa computational thinking waliye waa qaybteedii saddexaad computational thinking ee ah pattern recognition pattern waxa laga wadaa inaad dareento sida qaababka waxa isku xigayaan ama midabka wuxuu leeyihiin ama sida ay u qaabaysan yihiin hadda fiiriso shaatigaygan wuxuu leeyahay stripes waxa la dhaho wuxuu leeyahay midabyo marka waa pattern waa diligtimo isku aadaadan ee la dhigi karo pattern recognition waa aan ogaaday sida patternkaanu yahay marka haddaan ku salayno waaye dunideena nolol maalmeedka maalin walba markaad guri booqato ee mutureelka gurigooda yaala aad aragto midabkiisa isoo isku dhegdhegan yahay waa pattern midabka midba mid ayuu ku dhagan yahay qaabka isku xiran yihiin afar gees u yaalaan midba midab uu leeyahay waa pattern waa qaabab soo laalaabtay isku mid ah igada cayaarta libaaxad computational thinking ayaa wali ku jirnaa okay inaad horta aad fahamto pattern ama qaabka waa wax muhiim u ah nolosheena maalin walba waxayna ka dhigtaa mid noo ogol inaan dunida aan ku noolnahay aan ogaano si fiican aan u adeegsano waxyaabaha aan indheheena ku arkayno oo recognition-ka aan ku samaynayno waxa jira waxa la dhaho recollection ee ah xusuusta dheer iyo waxa jira waxa la dhaho recognition ee ah xusuusta dhow ee hadii aad go'aan inta qaadato aad ogaa karto wax okay marka recognition wixii inaad aragto recollection wixii inaad xasuusato way igada cayaarta waxaan rabaa recollection-kaaga inuu bato iyo recognition-kaaga igada ha igu wadin bahasha pattern aan ka rabaa marka inaad ogaato pattern-ka ama aad cadaysato ama aad garato waxa laga wadaa pattern waxyaabo soo laalaabtay oo la qiyaasi karo hab dhaqankooda kuwaas oo u ogol qof walba ee aqoon kara meesha wax u socdaan oo go'aan ka qaadan karo tusaale kale gurigaaga waxa yaala mutureelka guriga yaala haduu yahay meesha daarada barsada banaanka guriga waa fahmi kartaa waa waxyaabo afar geesa ee ilaa ay darbiga tagaya waa isku cabir waa isku baaxad waa isku midab pattern recognition marka wixii waa ogaatay laba xabaad aragtay taa waxa qaadato go'aan waxa tiri waxaan waa mutureel ilaa darbiga tagaya waka recognition la yiraahdaa iyo pattern hadeeyin wuxuu wax isku qaaba pattern waa midabka qaabka ama nuuca ama sida loo soo bandhigay waxa kuwaasoo la soo celiyay tusaale kale shaybabkan ka hadlaya hadeeyin kuwaasoo saxamo tusaale kale saxamaha guriga ku yaal libaax waxay leeyihiin wareeg waay hadii la isdul saaro waa isdhex galgalayaan Soomaa igada cayaarta kuwaasoo marka ku ogol hadii saxamada ay isdul saarto inaad ogaato qalabkan cuntada lagu cuno ayaa loo yaqaanaa set of crockery hadii aad qalabka cuntada lagu cuno ee agabka cuntada lagu cuno qaadooyinka waa isku wada egyihiin fargeetooyinka waa isku wada egyihiin saxamada waa isku wada egyihiin waa pattern recognition libaax waad garatay waay marka inaad garato sida wuxuu u soo laalaabteen waxay runtii ay aad iyo aad kuugu sahlaysaa inaad fahamto dunida aan ku nooshahay si sahlan ka qiyaas qaado waay marka tusaale baabuur hadaa aragto motor leh oo yar 4 taayir leh ama 4 lugood balse malahan baalalo ku duulo diyaarad maaha waa baabuur marka waxa aad qiyaasi kartaa marka hab dhaqankiisa soo socda sida hadii uu yahay baabuurkaasu mid qatar kugu ah ee soo duulayo xawaara ku socda waad ka wareegi kartaa balse waxaad ogtahay inuusan baabuurkaanu duuli karin oosan dhulka ka kici karin hadii cufjiidadka iyo bir inta ku dhaco hawada uu aado marka kugu soo dul dhaco mooyee ama hadda waxa la sheegayaa baabuur Slovenia wadanka la yiraahdo baabuur duulaysa soo saareen yani tusaalaha wuxuu yahay wax walba adduunkan aan aragto qaab leh hadaad horay u aragto maskaxdaadu waxay sameynaysaa recollection
wixii ka soo bixinaya maskaxda kaydkay ku jireen waxay keenayaan qaybta hore oo recognition-ka ah wixii aqoonse markaa kadib waxay qaadanayaan go'aamo conclusion waxay leedahay drew conclusion from it waxa waaye waa inay go'aan ka soo dhex baxdo waa inay nuxur kala soo dhexdaa nuxurku muxuu yahay hadda baabuur 4 lugood leh ee kugu soo duulaya waad ogtahay inuusan duuli karin wadada oo marayaad uga wareegay ha sidaa weeye libaax ama libaaxad tusaale weligaa music ma dhagaysato libaax ha haddaad music dhagaysato waxyaabo badan ayaa runtii ka fahmaysaa pattern can be fun xataa aniga libaaxa erayadayda qaarkood qaar pattern ay leeyihiin waa isku xukigaan ha madal waxbarasho oo laga barto cilmiga IT-ga waxaan soo wada xataa waa dareemay maxay waxyaabaha ku celceliyo waa maalin walba waa pattern haddaan ku dhaho hurbad waa madal waxbarasho laga barto cilmiga IT-ga oo looga barto si itu soo itaabsiya ku baro goob kasta iyo goor kasta mujada goob kasta iyo goor kasta waa pattern soo laabtay iga daa libaax haddaan dhinac kale aniga aan isku feeroriyo dhakadaydana haddaad rabto inaad dhambaal ka bixido hoos dhig iga daa caarta libaax dhukurnaanta waa ka helay ma sha Allah subxaana alladii khalaqaka thumma sawaaka thumma cadalaka walibaax ama libaax waa ku qanacsanaha bahasha rag baa ka faana ee inta turki aada tinta soo talaasha anigu waxaan ku leeyahay ma talaalanayo libaax sideedana kugu soo tabinaya TT taadayaanan ku taagsan maante marka inaad hesho the pattern marka inaad pattern-ka raadido ma ahan mid walba mid runtii inaad qof dhab mar walba ka hadlaya inaad tahay marmar adoo dhayilaya ama kaftamaya ayaad soo gudbi kartaa pattern-ka sida music oo kale music waxay leedahay pattern of notes ee ah music ayaa waxa loo qoraa qaacidooyin oo la isticmaalo warqad ku qoran oo notes ah midka dheer iyo midka gaaban sana ku iri pattern way kor hoos u bilaw kor u wad way waraga daadi ciyaartan iyo maqaamaadkeena ku barin waa ka xumaa iga raalo meel kale idin leeyahay maqaamaadkii musiga ha iga daadi ciyaartan libaax okay marka dadka dhageysta musiga ee ku raaxaysta heesaha ay jecel yihiin waxay fahmi karaan heestaan inay leedahay pattern of song ee ah wax soo laabtay ee ah eray soo laabanaya ha haddii libaaxu oo soo isku foorariyo waxa ku leeyahay amana dhaliil amana dhiirigelin dhambaal hoos dhig waa wax dhac ka wada bilaado pattern leh soo laabtay inta ciyaarta ma sha Allah hada faacda kaaga dhigana fadlan nafaduli ama nafani hoos ku faalo ha hada raacda kaaga dhigana riix gambaleelka rukun ka noqo rugta hurbad riix gambaleelka mujida raaca ka dhaxayda iga ciyaarta iyo muso xarta raabki inaan ku qaado ahay kilobyte terabyte zettabyte yottabyte kulligood byte ka dhaxaysa Soomaha pattern-ka marka waa byte yana kugu wadin bahasha marka music u fiirso repeated passages of a note marka hees la qaadayo ama la qaadayo gabay waxa jira horis oo maro marka horiska mar walba ama the chorus ingiriiska lagu dhahay waa marka walba la horinayo haday soo laalaabato horisku badana waa soo laabta heesaha badana waa 3 daqiiqo 4 daqiiqo 5 daqiiqo midda 8 daqiiqo gaaraysa iyo badana waxay leeyihiin ilaa iyo 4 waxay leeyihiin horis oo 4taas horis 3 qayb u dhaxaysa qaybta koowaad heesta horisa ku xiga qaybta labaad heesta horisa ku xiga qaybta saddexaad heesta horisa ku xiga ha af Soomaaliga hadaad u garanayso waxa lagu yiraahdo bal hoos ku qor libaax ka faalo dadka waxay u sahlaysaa inay fahmaan qaybta musiga taasoo ka dhigaysa in la ogaado marka ay sii socoto heestu ama gabayga oo sii socdo meesha u socdo ujeedada iyo waxa laga leeyahay waa pattern waa ogaanaysaa pattern-ka ka hadlayso ama waxyaabay ka hadlayso ha waa si kale wax ku fahmi kartee haddaan ku salayno dunida xaqiiqadahan ku loon lahay goor walba bini'aadanka maskaxdiisu waxay raadisaa waxyaabo ay fahmi karto familiar pattern sidaa darteed ayaa dadku waxay badanaa arkaan waxyaabo aanan meesha oolin ay maskaxdaadu ku tusaysaa marka sheekadan ama waxyaabahan lala yaabo cajiibka phenomenon waxyaaba lala yaabo waaye phenomenonka waxa kamida inaad marmarka qaarkood cirka inta fiiriso daruuraha ay kuula ekaato daruurtu waxyaaba qaabaysan sida waxa arki kartaa daruurtu inuu ekaato waji qofeed inuu u ekaato baahiya ku hido kale rooti abuukay u ekaatay ilaahay amarkiis ama wuxuu ekaatay xayawaan oo kale ama wuxuu ekaatay wax uun marka waxa loo yaqaanaa pareidolia waa cudur jira hallucination marmarna waa loo aqoon karaa balse pareidolia aan aqoonno waa fiirey waxa leedahay daruurtan waxay u egtahay waxay u egtahay bakayle barbarkay ka baxdaa waa bakayle qaleena maqli jira bakaylaha dhagtiisi waa tan madaxiisi waa kan lugihiisi waa kan dabadiisi waa tan waa jiidmaysa bakayle u ekaysi igada war haye bakayle mu ekaatay marka bini'aadanka maskaxdiisu waxay ku shaqaysaa pattern recognition laba qof ka soo horbaxay markaas inuu wajigaagu waa igu yaal pattern recognition ku dhacay gabadha ka soo baxday diricaan hadda ka hor baan arkay yaa ka soo tabar caareysatay iga dhacayrtan iyo hadalkayga xataa waa pattern ma sha Allah okay marka kombiyuutaradu waxa ay aqoon karaan wajiyada qaababka ama masawirada
haddii qofka programka qorayahay oo computerka ku tababaro ama oo u qoro ama oo u sheego tilmaamaha ama instructionska waxa oo computerka ka doonayo inuu soo arko weliga maaragtay adoo isla waxaad gashaa gmail-kaaga meelaha qaarkood security sensitivity aad jirta waxa lagu soo diraya waxa la dhaho match the character waxa lagu leeyahay waxa isku aadisaa pedestrianka ama waxa lagu leeyahay biskuleetiyada isku aadi ama waxa lagu leeyahay buuraha isku aadi marka wixii inta taabato ayaad waxa samaynaysaa pattern recognition meesha kaasoo geliya ujeeda horta pattern recognition aad samayne wixii aad leedahay verify waa isku aadiye waa maxay haddii computerka programka loo qoray oo if statementiga ah hadday tiraahdo qofkaanu hadduu sidaa iskugu aadiyo masawirka waxaa laga wadaa pedestrian crossing motorcycle bicycle bridge whatever waxay tahaba verify aad ku dhufanaysaa haddaad ifahmaysaan ka hadlayaaye oo tahay qof fariida ee ayaantan isticmaalayay two factor authentication ee laga wado markaad baaswarkaaga gelida kadib ayaa lagu hubinayaa inaad tahay qofka sheeganaya baaswarkan iyo usernamekan okay marka in la adeegsado patterniska computer scientistiga dadka ahi ee macluumada computerka ku soo darta cilmiyada cusub ayaa loo yaqaanaa computer scientist dadkaasi waxay fiiriyaan waxyaabo soo laalaabtay oo ah tilaabooyinkay qoreen barnaamijka iyo taakooyinka la qaadayo iyo tilmaamahan waxa ku xusan inay yihiin kuwa soo laalaabanaya sidaa darteed markay rabaan inay turjumaan ama ay fasiraan tilmaamaha ay programka u sheegaan luqadda lagu qorayo luqadday rabtaba ha noqotee waxay isticmaalaan isla codekii ama script iyo code waa isku wada mid kuwaasoo markaa doonaya mar walba ee ay soo laalaabato patternkan in la adeegsado sida soo socota ay markaa u sheegaan computerka ee leeyihiin mar walbeed aragto midabka guduudka mar walba waxaad adeegsataa block of codekan ama codeka intaa isku xiran ee stepkan ah adeegso marka sida ugu fiican ee ay ku qori karaan program dheer waxa waaye inay isticmaalaan codekii patternka ku soo arkeen haddii ay jiraan dad kale ee programmeris ah coder programmer developer waxa dhan waa isku wada mide qof kale programmer hadduu arko pattern recognition oo ogaana inta sheeray soo laalaabatay godka in la taabto formkan la buuxiyo meeshaan nagasti la dhaho wuxuu arkayaa marka barnaamijkii inta fiirfiiriyo inuu ku daro asagu marka sida uu doonayo inta uu isticmaalo midabyada ka bedelo recycling the code ayaa loo yaqaanaa libaax haddaa xasuusato haddii kaleba waa qayb ka mid ah decompositionka waa xasuusataa inta la kala furfuro cilada abstractionkeeda la helo pattern recognitionkeeda la helo hadhowna waxaan baran doonaa algorithm wax la yidhaha ee cashirka soo socda aan ku falanqayn doona insha allah balse weli waxaan ku dhex jirnaa waa pattern recognition ila soco fiiri marka waxaa la yidhi repeated patterns repeated pattern haddii wuxuu soo laalaabtaan okay codeka loo qoray ma raba anigu luqaddii inaan ku tuso balse cowda waxaa loo qoray tusaaloo kale in uu ahaado afargeesyada cagaarka oo ay raaceen afargeeska guduudka ama casaanka ayaa loo qoray waxaa la rabaa marka in loo qoro codekaas task 1 marka task 1 ee ah waxyaabaha la raba in la fuliyo iyo task 2 waxyaabaha labaad ee la raba in la fuliyo shaqada koowaad ee la raba in la fuliyo iyo shaqada labaad ee la raba in la fuliyo marka qofka programmerka wuxuu dib u isticmaali karaa codekii oo ku soo qaatay u fiirso step 2 ama task 2 sidee marka task 1 wuxuu ka kooban yahay laba basaliya mid wuxuu ka kooban yahay huruud u eg ama u eg un cagaar iyo jaalle in u dhexayda mid casaana haye waxaa u dhexeeya mid kaloo asaguna basali ah ama pink ah mid kaloo asaguna cagaar u dhow casaan iyo pink marka patternkan maxaa ka ogaatay 2 3 4 task 1 waxaa ku jirta 4 pattern ee pink ah bacda haddaan baabaha ka dhigo maanta 4 pattern ee pink ah ayaa waxay ku jirtaa task 1 fiiri marka 3 pattern ee bluega ayaa ku jirta oo midabkan bluega u dhow yahay iyo waxaa ku jira pattern jaalle ah ama cagaar ah ama wuxuu rabo ha noqdo midabkaasu iyo pattern waxaa ku jira guduud iyo pattern kaloo blueg okay fiiri marka task 1 iyo task 2 maxay iskaga mid yihiin 3 pattern iskaga mid yihiin waate waxaa lagu yidhi this pink block appears 4 times in task 1 kan pinkigaani 4 mar ayuu ka soo muuqday task 1 wuxuu ka soo muuqday markii koowaad markii labaad markii saddexaad markii afraad waxaa lagu yidhi marka this bracket button appear in both task 1 and task 2 waxaa lagu yidhi qaybtan ay ku jirto qooba qowsaynku ama quotationka ee saan ah oo ku jirta bracketka okay waxay ka soo muuqdeen labadaba oo ah task 1 iyo task 2 balse task 1 ay laba mar ka soo muuqdeen task 2 na waxay ka soo muuqdeen hal mar
marka task 1 iyo task 2 maxay wadaagaan haddii task 2 adoo maraya aad u baahatay block ku jira task 1 inaad qaadato waxaad ka soo qaadanaysaa qaybta hoosaad keenaysaa code-ka marka programka marka la qorayo barnaamijka la qorayay kaba soo qaad barnaamijkaani waa in markii lagu dhufto my courses haddaad hurbad wax ka barato kale waa task waay programka waxa loo qoray in userka markuu authentication sameeyo waxa loo soo rogayaa bog la yiraahdo my courses ama student dashboard loo yaqaano student dashboard markay ku soo baxdo u fiirso code waxa qoran ah if hadduu qofku ku siiyo click my courses ha u furmato programadiisii okay waa pattern soomahan u fiirso haddii patternkaas marka pattern ka hooseeyo ah my books haddii qofku my books oo ku dhuftana qofku hala geeyo buugaagtiisii marka maxaa ka dhaxeeya labadooda waxa ka dhaxeeya waa clickta ayaa ka dhaxaysa oo labadooda waxa loo sheegay script waxa ku jirta javascript oo u sheegaysa meesha lagu dhufanayo iyo meesha uu ku geynayo marka ila soco waa pattern recognition marka code qorayso codadka badana reuse lagu sameeyaa dib loo adeegsadaa code-kana la qoray waxa uga baahata meel kale waa soo qaaday meel kale dhige wax yar ka u baahantaad bedele recycling the code dib u isticmaal dib u adeegso waay ila soco libax logigan raba inaan ku isticmaalo iyo maskaxdaada inaan ka shaqaysiiyo meelaada wax ka eegin araba inaan wax ka tuso nina hadda koor waxa la yiri waxa soo raacday xaajiyadiisii ayagoo ku socdo wadada ayaa ninkaanu wuxuu aan nin shaxaariya hadda libax maanta dhan gadaal u eega markii qof dumar soo ag martaba xaajiyada waxa ku tir waariyaahe war maxaad ka eegaysaa marka wuxuu halkaaba kama eegin inta xeerta libax halkaaba kama eegin ka dhacday marka meelo badanooda ka eegin aan ka tusi doonaa libax oon ka wado meelo badanooda wax ka filayn asi aan wax ku baraka tusi doonaa tusaale bini aadan ku fahmi karan aan ku salay doonaa saad wax u fahamto maxaa yeelay wax walba waxa ka muhiimsan inaad conceptiga fahamsan tahay iyo inaad wax xifdiso qof waxa arkay code dan soo xifdiyay ee wax allaala waxa code-ka uu yahay soo uu anfacayo sida uu isticmaali karo aan fahamsanayn code aad xifdidood copy paste ku soo sameeydo waxa ka fiican code aad fasiri karto matnigiisa aad sharax saari karto libax si kale wax ku fahmi kartaa hadaa ku fahamsiyo libax matnigiisa waa inaad sharaxi kartaa code-ka aad dhigi kartaa code-kan waa wax u taagan yahay meeshaas ku dhufo saan tag halkaas tag qofka hubi haddana waa la weydiiyey wixii inuu sameeyo marka tusaale waxaa rabtaa inaad wax masawirto waxaa tahay qof farshaxana wejiyadaad masawirtaa tusaale oo kale saaxiibkaa wejigiisaa rabtaa inaad masawirto haddana waxaa rabtaa inaad masawirto saaxiib kaloo asaga ag fadhiya wejigiisa marka waxaad samaynaysaa weji kartoon u eg oo adiga qofka wejigeeda ah okay markaa kadib ayaa waxaa ka soo qaadanaysaa waxyaabaha ay iskaga midka yihiin aad ka soo qaadee marka tusaale waxaad samaynaya illustration ah in aad u isticmaasho hal shay dhowr mar inaad isticmaasho adoo markaa ka soo qaadanaya farshaxankii koowaad oo samaysay dhowr marna adeegsan doona aan ku tuso marka haddii aad rabto geedi socodka farshaxanka soo u socdo waxaad samaynaysaa kow inaad abuurto kartoon wax u eg oo ah circle aad samayna horta circle aad samayna okay marka circle-kaas haddii aan sidiisa ku dayno wax kaloo different oo noqona oo wax ka duwan wixii aan rabnay because goobaabin oo noqona balse ka waran haddii aad ku darto indho af iyo san muujeda waxyaabihii waa iskaga mid weli indhaha iyo afka iyo san waa iskaga mid okay u fiirso waxaad ku darta tinta waxaad ka dhigtay inay tahay tin taagan ee shaydaan u ego inta u tagay baalbeerigii saaxiibkay ah yaqaanay ee aniga dhakadayda xiiri jiray inta u tagay ee mid kale asaga u sameeyo mid tin ama waa tin burukaha saartay ilaahay markiis fiiri marka tintan qofkan saan ahayd markaas kadib ayaa waxa loo yeelay midab loo yeelay tintii waa la farshaxankii lagu sameeyey waa la xardhay okay marka labadan waxaad samayday spiky hair aad samayday mid ah midna waxaad samayday straight hair mid ah tin taagan ee inta la mariyo gel la taagay mid ahaad masawirtay labadan masawir maxay iskaga mid yihiin waxay iskaga mid yihiin goobaabinta waxay iskaga mid yihiin afka iyo sanka okay marka kadib ayaa waxaad samayday tintii waxaad ka dhigtay tin dheer waa gartay haye markaas kadib ayaa waxa u yeeshay midab marka labadan pattern maxay iskaga mid yihiin waxay iskaga mid yihiin ilaa iyo kow labo iyo waxay iskaga mid yihiin indhaha oo circle ah iyo afka iyo sanka balse tinta ay kala duwan yihiin iyo wejiga midab loo yeelay marka fiiri spiky oo ah tinta kor u taagan waa kartoon waaye midka kalena oo tinta toosan lehna waa kartoon kale marka kartoon ama sawirayday
barnaamijka Illustrator la yiraahdo baratay sida wax loogu masawiro patternkiya baratay marka hadda waxaan ka dhigayaa qof hal abuur leh creator qof oo curi kara content creator ah sar kale wax walba ka bilowdaan saasan u abuurto dhag marka kadib ayaa waxaad samaynaysaa factor based graphics Adobe Illustrator ku bara libax okay marka inaad isticmaasho xalal horay u jiray haddii cilad cusub aad aragto waxa laga yaabaa cilada cusub waxyaabaha ka kooban tahay the elements waxyaabaha ay ka kooban tahay ay keeni kara waxa laga yaabaa inay la mid yihiin waxyaabo horay loo soo xaliyay waa pattern recognition waxa marka suurtagal ah inaad adeegsato code horay loogu xaliyay cilad problem u jiro horay u dhacay marka cilad hore u dhacday ayaa xal loo helay sidii loo xaliyay ayaa qofa qoray documentation uu ka sameeyay code uu ka qoray codekii meel uu dhigay codekii inta soo qaadato ayaad waxaad u baahantaa inta ka bedesho aad ku salaynaysaa halka cusub ee la helay saas darteed ayaa waxay u tahay IT-gu runtii mid aad iyo aad u caawisa dadka barta maxaa yeelay qof walba engineer qayb kamid ah ku takhasusay IT-ga waxuu ciladahu la kulmo dhan documentation uu ku sameeyaa waa qoraa meel uu galiyaa oo ka faalooda forumska iyo wixii lamida si dadku ciladaas ay ku dhacday ay uga faa'iideystaan waxa loo yaqaan cilmigaas knowledge based ee ah internetka ay ka buuxdaa runtii inaad ogaato waxyaabahan soo laalaabtay waqti badan bay ku dhaqaaleynaysaa waxaadna runtii dhaqaaleyn kartaa waqti badan oo aad geli lahayd saad ciladan u xaliso hadaad kaliga isku day lahayd waad keeni lahayd balse waxa ka fiican inaad raadiso waxyaabaha hore loo xaliyay pattern-kooda aad ogaato marka kadibna ciladii aad xaliso marka reusing old solution halal hadda ka hor la helay dib u isticmaal ayaa laga wadaa reusing old solutions okay altering the pattern marka haddii aad rabto inaad marka aad wax yar ka bedesho sida qaababka wax og yihiin tusaale kale wajigii ama sawirtay sida korna ugu xusneed oo mid waxa keentay leh ookiyaalaha qorraxda wata sunglasses qofka kartoonka sameeya ama farshaxanka sameeya waxa laga yaabaa inuu asagoo isticmaalaya sidaan leh inuu wax yar ku daro sida hadda faruuryaha loo guduudiyo kale waxyaabo badan oo kala duwan ayaa laga soo saari karaa ayadoo marka lagu sameeyo wax yar ee isbedel ah sida ookiyaala loo sameeyay faruuryaha wax loo mariyay tinta kor loogu qaaday oo midabka tinta loo bedelay all other elements marka waxa lagu yiri waxyaabaha uu ka kooban yahay muhiimka sida tinta wajiga sanka indhaha ma isbedelin balse waxa lagu daro oo kaliya ookiyaala loo xiray libax marka all the other elements of the carton remain unchanged ee kartonkan wax walba ku saabsan waxba laga bedelay ookiyaala kaliya loo xiray balse factor based graphics kaani waxay ku salaysan tahay waa in wixii hore jiray loo isticmaalay ayadoo marka kadib wax yar lagu darayo hana moodin ookiyaalahan waa circle la sameeyay midab loo yeelay calaamad yar oo saana loo yeelay tanna waa line yar oo inta la sameeyay line kala dul saaray khad la dhex mariyay haddii rabto marka farshaxa inaad noqoto iyo character animation waa aad barakartaa libax haddana tusaale kale oo adduunka ka dhacayaan ku saleynaynaa pattern recognition-ka xaqiiqo ku saabsan dunida aan ku noolno caalamka ayaan ku saleynaynaa horumarka uu sameeyay pattern recognition-ka iyo guulaha laga gaaray pattern recognition-ka iyo guul darrada uu soo hooyay pattern recognition-ku guusha aan ku horeyna bal waxaa jiray barnaamij la yiraahdo Holmes 2 oo computer ahay kaasoo caawiyay booliiska waddanka UK si ay u xaliyaan falal dambiyeedka dadka geystay sida ay u dhaqmeen habdhaqankooda ayaa laga ogaaday systemkaas marka in la ogaado waxyaabaha jira mar walba maahan mid xal keenaysa hase yeeshee hadda ka hor ayaa waxaa dhacday in pattern ay samaysay Google oo data collection ahay datada ay soo xiganaysay taasoo ku salaysnayd hergab ayaa wuxuu ka dilaacay meelo badan ee kamida adduunka waxay samaysay marka program la yiraahdo flu trends taasay filaysay inay dadka u sheegaan meelaha cudurradu ka dilaacaan sida flugo kale ee la iska ilaaliyo meelaha dadka fluga ay ku badan yihiin inta la raadiyo marka kadib la ogaado adduunka meesha flugu ama hergabka uu ku badan yahay la iska ilaaliyo hase yeeshee aad iyo aad baahi loogu qabay oo la raadinayay xog ku saabsan meesha uu ka jiro cudurka hergabku ayaa waxay kaliftay in daytadii si qalada looga buuxsho systemka maxaa yeelay computerka waani ku soo sheegay waa system kaaga baahan adiga daytada saxda inaad ku rido hadaa mid qalad ku ridana tii aad ku ridale oo ku soo bandhiga marka sidii loo rabay mausan u soo bandhigin markii ay dhaceen waxyaabaha faafa cudurrada faafa loo yaqaan outbreak sida darteed flu trending programkii waa ay ku fashilmatay maxaa yeelay pattern recognition-kiisi iyo sidii la rabay mausan hawsha u fulin oo dayta badan oo qalada ayaa lagu shubay ama dayta badan oo ku filan si looga raadsho meesha wax ka jiraan dunida looma helin caabuqa corona kale inta qof oo ku dhacay maanta inta qof oo soo ku dhicin meelaha la xaliyay meelaha dadka
lagu sameeyey talaalka meelaha dadka oo ku badan yihiin meelaha dhimashada u badan tahay meelaha cudurka aad loo kala qaadayo waxaasoo dhan waxaa la sameeyey databaseyo ayadoo laga baranayo ciladii horay Google ugu dhacdo ahayd flu trend waxaan rajaynayaa inaa wax badan ka faa'iiday pattern recognition gurigaaga mutureelka ku yaala fadlan pattern ku yahay hoos ku falanqay hadda taqaan wuxuu yahay hadda meesha taagan tahay wax pattern ma u jeedaa bal fiiri darbiga fiiri waji ku masawirmay iga dhacayrta libaax paradolia ma kugu dhacday ama libaaxad paradolia bal ka fiiri meel walba qofkan qof buu ileeyahay darbigan qof wajigiisa iga soo baxay ama shay waxaad aragtaba haday wax kale ku masawirmayaan paradolia ku hayda runtii cudur maahan ee waa bini'aadamka maskaxdiisa wax u shaqeeyda familiarity ina wixii taqaano waliga alaha mulku geey magaalada aqoon maxaa kugu dhacaya luuq ka bax waa dhumaysaa hadda ka hor marka tagnay sagaashameedii waxaan ku sheegay marko waxay ahayd meel dabaqyo ku badan yihiin hadda ma aqaansay tahay dabaqan kale ka baxay luuqan ka baxay waa dhuma ayadoo iraadaha soo bax waxa la dabaqo ka dhacay waa dhuma libaaxi ma aqoon waagaas waxa la yaqaanay magac kale mar rabaan hadda kula wadaagay libaaxi waa u dhumay markii dambe pattern ala sameeyay recognition waxa la luuqan ka baxay bidixdan galay halkaan galay waa kana libaaxi waa la soo qabtay marka pattern recognition hadii aysan dadka isoo qabanay aqoon lahayn qaabka u dhisan tahay magaaladu ma ay isoo qabteen because pattern recognition kuma sameyn kareen familiarity aqoonsi libaax ama libaaxad haddaad ogtahay hadii kalaba waxaan hadda kugu dhisayaa maskaxdaada ha noqoto decomposition ha noqoto abstraction ha noqoto pattern recognition waa wax kuu fiican maskaxdaada logically si aad u noqoto programmer marka computational thinking wali ku jirnaa haddaad ka heshay muuqaalkan smash the likes libaax fadlan ka faalo adoona faduulinaya ama nafaaninaya faalahaaga hoos dhig waa noo muhiim fikirkaagu aadan u soo dhaweynayna haddoo nugu fooraraya haddoo nafaaninaya intaba balse haddaan dhacda kaaga dhigo dhukurnaanteeda qurux badan aan ku mashquulana dhacda dhakada dhambaal hoos dhig adoo markaa na dhaliilaya ama na dhiirigelinaya dhac ka sii adoo markaa dhag ku siinaya laigana haddaad ka heshay waxaan ku leenahay smash the likes oo algoritmka ku caawiyo hurbad si YouTube-ka wax walba like la saaree laga faallooda YouTube-ka waa uu jecel yahay waa algorithm la qoray algorithmka YouTube-ka soo ku shaqeeya ku sheega wuxuu ku shaqeeyaa waa pattern recognition iga dhacaarda wuxuu fiirinayaa inta qof ee video-ga ka faallootay inta jeer like la saaray inta jeer dislike la saaray marka kadib ayuu wuxuu leeyahay video-gan wuxuu sameeyay trending waa laga sheekeynayaa dadka isweydaarsanaya marka trending hadda rabto inaad ka dhigto video-gan oo pattern recognition-kiisa algorithmka aad ka dhigto mid la saaxiiba smash the like silbaax aad baa ku salaamayna abulibaaxad mahadsanid